بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo khamiis ah waxa dhacay guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa kulankoogii koowaad ku qabsaday xarunta golaha shacabka waxaana gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa koowaad ayaa joogay waxa ajandaha uu ahaa laga hadlayay mudaynta waqtiga la furayo golaha shacabka waxaana la isku afkartay in ay noqoto 27ka bishan aan ku jirno ee March oo ah maalin Arbaca ah marka dhammaan xildhibaanada golaha shacabka meel kasta joogan waxa la ogeysiinayaa inuu goluhu furmayo 27ka bishan March sida awgeed cidii banaanka joogta xildhibaanada banaanka joogaana ay soo galaan xildhibaanada guduhu joogaana ay ogaadaan inay tahay 27ka bisha March furitaanku waa mahadsan